Soomaalidu ugu waaweyn waa reer Hargeysa oo ummaddu jecelayd inay dhageysato 80,000 oo qof ninkii dilay Hitler ka yar buu dilay inta nimanka u qunuudaya xalay mujtamaca inta leeg oo Soomaaliyeed oo muslimka sheeganayay oo ninkii 80,000 oo islaamka oo sunniga oo masaakiinta gurigoodii ugu yimo kullaayay nimanka xalay u qunuudayay oo ah kuwii diinta islaamku sheegtay oo Ilaahay sheegay oo yiri halla saaxiibinina oo haraacinina oo halla majaalisinina ay yihiin cidda taageerta waa la mid gaalka faragelinta wada oo xun oo ummadda diintaada iyo dhaqankaaga iyo noloshaada ku soo duula shariicada islaamku waxay ka qabto waa la yaqaan cidda raacda waa la mid waxaad ogaataan markii la isku taajinayo ciidanka sarinta waxa la isku taajinayo waa ummad Soomaaliyeed waa ummad islaama yaan dhibaato loo geysan hadda ma noqonayso sidii ma noqonayso ogaada laqad kelmadda culimada waxaan weydiinayaa Ramadaan waa soo dhowdahay waxaad uga qunuudi jirteen reer Falastiin in Ilaahay dhibaatada ka dulqaado iyo dhibka yaa uga qunuudaysaan Ramadaan artan manatayaahu iyo aabihii iyo awowihii yaa looga qunuudaya bal kelmadda su'aal idinku maqan weeye ka soo jawaab ilaa waad arkayseen waxa laga sameeyo meesha ninka la yiraahdo dhurwaa la jaaray ninka la buur madow horta yuhuudda awal bay sheegtay meesha inay cid ku leedahay laakiin ciday ku lahayd waa cid ay soo baxday iyadaa soo hadda soo wada baxdo reerkaagii noqotay diinta islaamkuna waxay sheegaysaa marka waqtigu gabaabsi yahay in dadku kala soocmayaan reer walba reerkiisa aadayo haddaad aaday Soomaalina lagaaga xishoonay halkan dalka Soomaaliya yuhuudi iman maayo kana talin maayo kuna noolaan maayo cidda raacdana waa la mid ee ogow kelmadda laq Soomaali waxaan leeyahay oo ugu horeeyo madaxweynuhu Xasan Sheekh Maxamuud horta waa alxamdulillah Soomaali hadday nala aragtay waxaanu sheegaynay annagoo waliba aan jeclayn inaan niraadno daylafa kan iyo alaabatan iyo baayay hoogay oran meeyno sidii rag baan wax isaga celinaynaa sidii rag baan u noolaanaynaa sidii rag baan